Oqaasha iyo waxgaradka gobolka Xaysiimo ayaa sidoo kale waxay ka hadleen xaaladda internetka ee muranka ka taagan gobolka Sool kaasoo la sheegay in aan la soo gelin karin magaalada Laascanood. Sidoo kale odayaashan ayaa waxay si weyn uga hadleen heshiisyadii iyaga iyo Somaliland ku dhex maray deegaanada Ari Cadeeye iyo Arbogays, waxayna sheegeen inay taageersan yihiin hadalkii dhawaantani ka soo yeedhay odayaal ku shiray magaalada Laascanood. Sidoo kale waxgaradkani ayaa ugu baaqay Somaliland inay sii dayso oo ay fasaxdo xadhigga internetka ee ku xaniban deegaanka Higlada ee gobolka Sool, waxayna sheegeen in carqalad keenayso isu socodka ganacsiga iyo dhibaatooyin ay ku dhex abuurayso ganacsatada, iyagoona sheegay in ganacsigu meel kasta joogo. Iyagoo arrimahaasi ka hadlay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa kuwa wada waa dadkii waxa weeye reer Taleex weeye, waa dadkii maxaan ku dhahay Somaliland ha la sii daayo xaaladda internetka, waa in la sii daayaa. sidaas aan codsanaynaa, dawladda u sheegaynaa, xisbiga u sheegaynaa, islaamka u sheegaynaa. haddii aad diidaan cidna rabta waayi mayno annaga iyo internetkayga wax badan oo isbedelayaan way ka dhacayaan. marka deesaas ay loo ballana Somaliland waxaad ka qabataan waa eegi doonaa. siyaasad mar haddii ganacsigii aad geliseen xisbiga kulmiyow iyo dawladda Somaliland haddaad geliseen wixii aynu ku ballannay annana waa ka baxayna. sababtu waxa weeye haddaan Hargeysa midhaanin Hargeysa jooga aanu keenin Laascanood lama ogolaanayo miya? waa xaaraan, mana yeelaynaa. waxaanu kaloo taageeraynaa odayaashii shirkii meesha la yiraahdo Arbogays iyo Ari Cadeeye shirkii ka dhacay ee ballanta Somaliland aanu ku kala qaadanay ee Maxamuud Garaad siday uga baxeen jawaabtii ay bixiyeen baan ku raacsannahay, nin weyn iyo nin yarba taasaanu ku raacsannahay. mar haddii Somaliland iyadu wixii aanu galay ballankii aanu galay ay ka baxday annaguna waanu ka baxnay. sigaa internetka la xidhiidha la sii daayo oo yaan siyaasad la gelin. sababtu waxa weeye ishu ayada birta arkaysa dadka idinka iska eriyay ha noqday. waxaanu ka codsanaynaa inaan la xayirin takoorna lagu samayn. sababtu waxa weeye haddii meel takoor la meel kale takoor ka imanaya. haddii la yiraahdo gobolada Puntland niman reer waqooyi ama maamulada ganacsiga waqooyiga ka socda ma iman karo. soo dhibaato dadka la sameeyo cidi ay hadhow ka jawaabayso maaha. anaga waxaan leenahay la sii daayo kaybalka jooga Berbera ama Hargeysa ka imanayana ilaa Boosaaso iyo Qardho iyo Hargeysa meesha Gaalkacyo iyo ilaa iyo gobolada dhexe ha tago meesha doona, waayo waa ganacsi. haddii arba imisa shirkadood baa ka furan oo telefoonada iyo isgaarsiinta iyo internetka ka shaqeynaya, mid walba iyada xor ah. waqtiin waxa ka furan meesha la yiraahdo Golis, waxa ka furan Telesom, waxa ka furan Samtel, mid walba waa xor meesha dadka nin meel looba diidi karo. marka in nin gaar ay yiraahdaan waxba qorshe badan gaar ah loo xidho ama loo xanibo, arrimahaas waxay noqonayaan wax dadka qabaayilka iyo Soomaalida iska horkeenaya. hadhoona ay noqonayso in cid walba loo fiirsado ama waxaan hadda hore uga dhicin Soomaaliya ay hadda bilowdaan oo imika kor u kacaan. waxaan leenahay hal dajiyo nabadgelyadana hal laga shaqeeyo, dawladda iyo maamulka iyo hay'adaha waxaan leenahay waxa laga qabto. qolada reer Somaliland xusbiga kulmiye ganacsigii shirkadaha hadda naquudinayo, biyahana siinayo, cuntadana siinayo, abaaraha naga caawinaya oo ciidda yar iyo dhulkayga ka shaqeeya, ganacsigii ay wadeen oo wiilasha ciidda u dhashay wadaan baa waxaa la yiri wiil u dhashay Gabeele iyo bay u xidhan yihiin Hargeysa oo Somaliland u xidhay. war ilaahay baan idinku dhashay ma ari kobuga saarba. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaayo, wasiir dawlaha, wasiirka arrimaha gudaha, dhammaan dadka reer Somaliland madaxda waxaan leeyahay xaaladda dib ha looga noqdo. reerka la yiraahdo Maxamuud Garaad oo midaysan hadaan nahay mid bari iyo mid galbeedba xaaladda waxaanu ka midaysanahay in dib looga noqdo. dadka la sii daaya oo la soo geliyaa meelaha ganacsiga iyo ciidda ay tahay. intaas xaaladda kaga baxaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ganacsigu waa xor weeye, waa la qabnaa, waanuna aaminsan lahay, waanuna ku dhawaaqaynaa in la sii daayo kaybalka lagu xanibay meesha la yiraahdo Higlada lagu xanibay Laascanood u socdo dhulka in la kala xidho iyo in la kala seeraysto iyo shirkadaha in la kala xanibto iyo in loo xidho iyo waxaas oo dhan waa xaraan weeye, lama baahna.
dimuqraadiyadda waxay kuma jirto ganacsiga dimuqraadinimada ah kuma jirto suuqu waa xor weeye gobolkan anaga aluhu halkaa ma soo geli karaan waa xaaraan weeye waa kicin weeye dadka lagu kicinayo aragti kale ay beeraysaa waxaan leenahay arrintaa iyada si degdeg ah waa in loo sii daayaa waliba dawladdan la hadlaynaa inay dawladdu arrintaas soo farageliso oo aan cid gaara loo xidhin laana hebel bay u xidhan tahay ama reer hebel bay u xidhan tahay dawladdu inay arrintaas ka waantowdo oo arrinta wax ka qabato maadaama iyadu ay dalka wada sheeganayso le annagaa wada xukunno Somaliland wada xukunno Cabdikariin Nolol Somali News magaalada Taleex